السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad iga daawanaysid waa Abno Official. Fadlan janalka haddii aad ku cusubtahay subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. Muuqaalkan wuxuu la socdaa muuqaaladii hore ee taxanaha ahaa ugu hadlaynay sidee loo sameeyaa dakhli kala duwan ama wax loo yaqaan passive income. taxanayaashii hore waxaan kaga soo hadlanay qaybta koowaad oo ahayd blogging, qaybta labaad oo ah YouTube channel. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa Facebook waa aalad ay badanaa isticmaasho dhammaan bulshadaha caalamka adduunka, waana aaladaha tobanka ugu horeeya adduunka ugu jira isticmaalkooda ay aadka u badan yihiin. kuma sii jiraan bulshadeena Soomaaliyeed. waa platformka number 1 ugu jiro isticmaalkiisa boqolkiiba 100 ay bulshadeena isticmaasho. oday hadhihin, waalid hadhihin, dhalinyaro hadhihin, waa loo wada siman yahay Facebook qaabab kala duwan ayuu qof waliba lacag ugu samayn karaa. habka ugu fudud uguna sahlan waa inaad leedahay Facebook page. qof waliba ama maanta shirkadaha waaweyn marka aragtid oo Facebook page leh, ama telefishinada caalamiga ah Facebook leh, iyo ashqaasta dadka waaweyn oo bulshada saameynta ku leh marka aragtid oo page leh oo qof walba ay maalin walba muuqaalo ay soo dhigayaan. ugu muuqaalkaas adiga aad daawanaysid, qofkaasi ama shirkadaasi waxay ka sameynaysaa lacag. haddaba maxaa diiday inaad adiga shakhsiyan laf ahaantaada aad lacag ka samaysatid muuqaaladaas? maxaad u baahan tahay oo shuruud ahaan oo Facebook aad lacag uga samayn kartaa? number 1 waa inaad dhistaa Facebook page. horta inta aadan dhisin mar waliba go adduunyadan waxaad ku tahay safar, waxaana u socotaa meel kale, aakhiro ayaad u socotaa. bulshadana waxaad ku leedahay oo ah inaad gaarsiisid wixii wanaag, maya marnaba kugu taageerayay wixii xumaata ah inaad bulshada ku dhex baafisid. ilaahay ugu cabso, mar waliba ku dadaal inaad wax allaale wixii wanaagga horta bulshada aad adigu anfacdid. nafsadaadana intaadan Facebook page aadan dhisin aad ku dhiirigelisid, war anigu maxaa bulshada kari karaa inaan ku anfaco, anigana aan ka anfaco. laakiin marba haddii aad xumaata inaad Facebook aad soo dhigtaa u furinaysid, waxaa waaye xaasha lillah, ilaahay ugu cabso. kow waa inaad Facebook page aad barataa. Facebook page markaad baratid waa inaad Facebookaada macnaha aad ku dadaashid siduu u kori lahaa. celcelis Facebook page shuruudihiisu waa inaad 10,000 oo qof followers ah aad leedahay. 10,000 qof oo followers markay kugu xiran yihiin waa shardiga koowaad ee aad lacag ugu samayn karto Facebook. shardiga labaad oo aad Facebook lacag ugu samayn karto waxaa waaye in page-kaaga muuqaaladii aad soo dhigtay ay daawadeen ama in la daawaday 60,000 oo minute oo daqiiqo in la daawaday muuqaaladii ugu dambeeyay. waa inaa hadba muuqaalo macquul aad soo dhigtid. 60,000 oo qof waa 60,000 oo qof inay daawato minimum 3 daqiiqo. waa inay fiidiyoda aysan ka yaraanin. waa fahamsan fiidiyowada oo 3 daqiiqo ka yaryahay listiga marnaba kuma jiro, ma garato. soo mar walba horta ku dadaal shuruudaha basic-ka inaad gudbisid oo aad dhistid 10,000 oo qof muuqaalad tayadooda sareyso, bulshadan waxtar leh, waa anfac badan inaad meesha aad soo dhigtid. waa easy habka mid aad lacag uga samayn karto. kumanaan qof ayaa maalin walba lacag ka samaysan Facebook daawashadaas keliya dadka daawanaya. sidee aniga Facebook lacag ugu siin haddaad dhahdid ugu muuqaalka adiga aad soo dhigtid wax loo yaqaan ayaa jiro ad stream. intaasoo company, intaasoo shirkado ayaa wax ku xayeysiisanaya Facebook.
waliba uga xayeysiista ama shirkad walba wax soo xayeysiista muuqaalkaadii ayuu soo galaa. Facebook waa wax kugu siinaysaa intaas ay muuqaalkaaga dhex yaaleen. ku xisaabtan bishii inaad dakhli fiican ka samayn karto Facebook adigoo bulshada mar waliba u soo bandhigaya wax waxtar leh. waxaan rajaynayaa qaabab kala duwan oo intaan in ka badan Facebook lacag lagu sameeyo ayaa jiro, laakiin hadba si ay ku imaanayaan sida in ganacsi online yani ka dhex furatid oo ganacsigaas online ku shaqaysatid, sidoo kale inaad qof influencer aad noqotid beesna waxaa u aaday inaad bulshada sumcadda ku leedahay mafahad. laakiin hadba muuqaalada meesha ku soo galayaan ayaa ku sharxi doonaa oo hal mar ma isku wada fureyno. hadda laakiin waxaan ku jirnaa qodobadii passive income sidee ku samayn karnaa. waa inaad Facebook page leenahay, intaas qofka nagu xiran yihiin, minimum 3 daqiiq ay yihiin, intaas qof ee daabataa. macnaha basic waa fahamtay, hadda maskaxdaada way shaqaynaysaa. soo markii adiga dee furaha gacanta lagaa saaro adiga lagaa rabo marka yani isteerigii sida u kaxee lahayd iyo sida u istaaji lahayd iyo sida u dhaqaaji lahayd adiga unba markaad maamulka gacantaada adiga ku jiraa. mar waliba waxaan diyaar u ahay inaan kaa caawiyo. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saas ay ku soo gaara muuqaalada xiga. la soco taxanaheeni weli uu socdaa, qaybo kale oo kala duwan ayaa inoo dhamay insha Allah.